Waxay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ciidamada ku maqnaa Eritrea oo qadka taleefanka ku wada hadlay. Maxay tahay sababta ay askartu u ooyeen marka ay maqleen codka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo? Maxayse tahay sababtu u wacay Farmaajo askartaasi? Qodobadaasi ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena ee si degan u daawo warbixintani. Intaan guda galin barnaamijka waxaan daawada kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, gambaleelka aad furato, sidoo kale like saarto muuqaalka, share-tana ha ilaawin si uu dad badan u gaaro muuqaalkani. Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa wacay isla markaana qadka taleefanka kula hadlay ciidamadii lagu eedeeyay inuu Farmaajo geeyay Eritrea ee uu ku dayacay. Waxa uu la hadlay ciidamadii halkaasi joogay isaga oo marka hore wareystay xaaladooda caafimaad. Sidoo kale waxa uu ka wareystay dhaqaalaha iyo inay nolol wanaagsan haystaan. Waxa uuna weydiiyey haddii ay jiraan waxyaabo caqabad ah oo ay la kulmaan, isaga oona si degan ku dhisan wadaninimo iyo qaran kula hadlay askarta. Balse ma jirin wax dhibaato ah ay ka sheegteen ilaa marka laga tago hal mid oo keliya. Ha yeeshee, madaxweynaha oo dhageysanaya isla markaana tixgelinaya hadallada askarta ayaa weydiiyey halka caqabad oo ay ka sheeganayaan, waxayna ku jawaabeen inay aad uga xun yihiin inay maanta leeyihiin madaxweyne aan isaga ahayn, maadaama uu yahay isaga madaxweynihii dhisay isla markaasina dhaqaaleeyay soona saaray awooddii ciidannimo ee dalka Soomaaliya ay lahayd, balse ay qulubta ka aaminsan yihiin inuu isaga weli u yahay madaxweynaha haatan talada dalka haya. Ha yeeshee, madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhahay waxaad leedihiin madaxweyne cusub oo Soomaaliyeed, isaga iyo aniga waa isku mid oo waxaan idin nahay madaxweyne. Hawlwelina wiilashaydii sidaan anigu idinku ahaa madaxweyne ayaad haddana u haysateen madaxweyne ila mid ah. Taasi oo uu Farmaajo ku muujinayay inuusan marna qulubtiisa ku jirin qabyaalad iyo sidoo kale nacayb. Hadalkaasi ayaa ka dhigan inuu yahay nin wadani ah. Waxaa ilmada cishan waayay askartii, waxay la ilmeeyeen xiisaha iyo jacaylka uu u muujiyey madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sida wanaagsan uu wadanimada iyo sharafta qaranka u dhowrayo. Waxa ayna garwaaqsadeen in Farmaajo uu yahay aabihii qaranka Soomaaliyeed, isaga oo lagu eedeeyay inuu wiilashaasi gatay, ay haddana mar walba ka warhayaan xaaladooda caafimaad iyo tan dhaqaale. Ma aan hadda madaxweynaha dalka, balse weli qalbigiisa kama bixin askartii uu isaga ku dhisay gacantiisa, soona celiyay bilicdooda iyo weliba awooddii ay lahaayeen ciidamada Soomaaliyeed. Sida aan wada ognahay, madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib burburkii waa madaxweynaha keliya ee dib u dhisay quruxdii iyo weliba qalabkii ciidamada Soomaaliyeed, isagoona dib u soo saaray askar Soomaaliyeed oo leh quwad iyo bilic lagu aqoonsanaa ciidamada Soomaaliyeed. Ha yeeshee, waxaa lagu eedeyn jiray mar walba dushana laga saari jiray in dhalinyarada ku sugan Eritrea ee uu u waday in dalkooda usoo tababartaan inuu isaga iibsaday isla markaasina ay ka dagaalamaan gudaha Eritrea. Ha yeeshee, hadalkaasi ayaa noqday mid been ah kadib markii uu booqasho ugu tegay madaxweynaha haatan talada dalka ee Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uuna soo kulmay askar ka qurxoon siday iyaga uga warameen hore, taasi oo ahayd inay askartu ku rafaadsan yihiin dalkaasi Eritrea.
daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen dunida media. Haddii ay tahay marka ugu horreysay janaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furto si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino.